waayahay dunida waxba marna kugu cusub oo aad cashar ku qaadataa waxna oo waxaad adigu iska dhigto aad matasho anigu ma ahayn mushakiiste waxaan isku dayay mushakina iska yara dhigo balse way la sii fogaatay mushakinimadii aan iska dhigayay waayahay maalmaha kamid ah hadii aan ka sheekeeyo dhacdooyinkii aan kala kulmay mushakinimada ayaa aan israacnay nin aan saaxiibtinimadayadu dhowr cisho 4-5 cisho aan dhaafsiisanayn intaan isnaqaanay ninkii markii aan israacnay meel baan wada fadhiisanay waxaan iska wada fadhino oo iska wada qaylaba habeenkii bay gaadhay haddana waan iska sii fadhinay tooxii aan ka talaabayay markay ahayd koodii habeenimo ayaa daad soo maray dabeetana wuxuu yiri saaxiib xilgan meesha tagaysay wadigan arko meelad gaari karta maahay waxaad samaysaa gurigayga 2 qolo sandaqadaha inaad iska seexato qolka banaan ayaan doonayaa in mari waayahay si fudud ayaan u raacay waayay baan ku yiri gurigiisa baan ninkii tagnaa gurigiisa markii aan tagnay ee gabadhii naga furtay aan kadinka ka soo galeen gurigiisa fadhiisanay ayuu gabadhii ay u yeedhay isagii dibadday kula faqday afkay isi saareen waxbay ku faqeen waxbay ka hadleen dadkan xilligan noo ka taxaan waa maxay qofka xilliga kula socdo su'aalo noocaas bay weydiisay dabeetana wuxuu yiri waan saaxiibna oo nin oday ma had dadkii aad moodisay hore dhibtii noo geystay kan wali intiina maaha qof problem iyo dhibaatooda dabeetana way ku tiri way soo noqotay show ninkani maalintii muu iman gurigiisa qadadii waxa taala qadadiisii maalintii oo kuleelisadii sidii ugu jirta waa sheekada qisadu halka ka dhici doonto dabeetana gabadha cashadii ayay noo soo dhigtay dabeetana markay cashadii noo soo dhigtay ayaan waxaan hadii niman caaw dhan qayliyay dhuunta waxba ka daadigi maayaani cad garaba ayay soo dhigtay iyo marqiisiyo wixii soo markaas ugu yiri hada maanta ana nimano qadadii baan ka maqnaayo cashadii baa taala ninkaas uu mar walba uu qoslaya uu dhool cadeynaya ana qosolkiisana mar walba shaki iga galiya dabeetana cadkii baan goostay markii aan cadkii goostay ee aan sidaa u huray ayuu dhuuntaba iga daadigi waayay shakigu uu isbiirsaday waxaan xasuustay ni aan ilmaad ahayn oo bari reer soo maray dabeetana wuxuu reerkii markaan aan soo maray ayaa waxa dhacday cad garaba ayay gabadhii keentay show cadkan waxa uu ku jiray waxa la yiraahdo waxaan aan filiga loo isticmaalo ama loo isticmaalo qataarka ama wax cilmi aynaan gaadhin oo la isticmaalo naf lagaga wareejinay markay hilibka cunto dabeetana wuxuu yiri reerkii markii aan gabadhii hilib ay soo dhigtay cadkii markii aan sidaa midada ugu dhuftay ayuunba waxaan raacay buu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim cadkii baa halka boodboodo wuxuu yiri fud show cadkan boodboodayaba qofkii naftiisa lagu xawilay baa nafta ka baxaysaaba dabeetana wuxuu yiri gabadhii cadka ay dhigtay qofkii baa show halkan jiifay xanuunsanayo baroor bay bilowdayba ila wata nafta ka baxday dabeetana cadkii aan halka dhuunta ku hayay markii aan huray ayay sheekadii ku soo dhacdaan oo show waxaan xasuustay ninkan aan la socdo iyo reerkan uu sheegay inay isku reer ahaayeen alla oo show qoladii baad caawa u soo gashay nafa ku wareeji jirtay qoladii baad caawa u soo gashay nafta ku wareeji jirtay dabeetana cadku iga daadigi waayay dabeetana bishinkii aan ilaabay ayaan dib soo celiyay markaasna bismillaahi awwal wal aakhir baan idhi markaasna hadana awwal aakhir kan shaqeyn maaye markii uu horeysay aad afka gelisay ee hadinaad awwal aakhir tiraahdo oo bismillaahi rahmaanir rahiim tiraahdo aawal baxsan lahayd hadii aad bisinka qabsan lahayd oo magaca ku bilaabi lahayd dabeetana isla markiiba xumad ayay gashay dareen qarqariyo ayay galay dabeetana dhimasho ayay niyeystay isla markiiba in anigu caawa naftaydii naf xanuunsayso gurigooda jiiftay aniga leey waxa wili adkii waa la qoninkii uu qoslay waxa dhig iminku kula helayo ninkii waa ka qoslayay wuxuu leeyahay sida doonaysay imika ay u dhacday ninkiina waxaad ka cunay dabeetana isla markiiba xumad iyo kurbasho ayaan galay anigu aad u baqanaya dabeetana la waa shaki waxay hayaaye xanuunku si kadisa ayuu
ii qabtay waan seexanayaa baan ku wuli dabeetana ma seexanin qolkii uu seexiyay ayaan alaab wixii taalay kadinka ku gudbi waxa intay naftu ka baxaysa haduu caawa ku tuuri lahaa sanqadhaada jaarka maqlaana guriga saxlay wax ka qorox qaraxlahaayeen hala yiraahdo oo sanqadhaada hal ogaado dadku hayraadaan aniga guriga saxlay sanqad badani ka baxaysay la banaanka sal lagu dhigaya marka imka naftu ka baxday dabeetana albaabkii biliday dabeetana warqad baan jeebka ku qoray inaan ka wada soconay in sida aan u dhintay sida xun aan u dhintay sulaalka jeebkaygii baan warqad galiyay waan dardaarmay intii aan dardaarmi karayaan qori karayay markiiba dabeetana naftaydu waxay leedahay caawin baad waxaad socotayba wadkaaga uga afkood uga soo gashay iska adkayso inta dhimanayso dabeetana waan seexday naftiba show waxay bilaabantay inay qaar ka dambe iga soo baxdo aniga arkaya halka markay imareysay wadnaa iyo meelaha ay soo gaadhay aan arkayo inta dambe iga timi waa shakigii oo ila sii fogaaday ayaan iri iska ashahaado waaban gamayba show ninkayga ashahatay isla waa dhimatay subaxii ayaa waagi bari leena noolo seexda xalay baan ahay albaabka la igu garaacay waxaan garan waayay inaan iilkii ku jiro oo la igu garaacayo malaa'igtii su'aalo ay weydiinaysan soo socota iyo gurigii xalay inaan seexday aan hurdo oo aan noolay wali dabeetana waxaan iri su'aalito lagu weydiinayay maxay ahayn markaasaan su'aali baan leeyahay inaad si qaybtaabay dad si xafiis leemka malaa'igtu markaba jidhigooda sheegay su'aalaha lagu weydiinayo qabriga markaasaan leeyahay ma rabbukum rabbiga ma nabiyuka nabiga waa maxamed diintay waa jee waa furqan waxaan diyaarsanaya marka albaabka la igu garaacayo dabeetana markii dambe la yiri armeed kala dhacday maxamedow de toos markaasaan iri yaa waa de toos waagu bariyay markaasaan iri tolo markuu waagu bariyay akhriyo la isla xisaabtamaa mise waagi kala bariyo gurigeed wali ku jirta show wali gurigii baan hurdaabo wixii aan xalay ka shaqeeyaan isla waad u dhimatayba uma dhimanay waa noolahay dabeetana albaabkii baan kacayo ilaahay noolaystay baa mahadaale ilaahay noolaystay baa mahadaale anigoo leh ayaan wixii aan ku baniday ayaan gurigii ka soo guray war maxaad guraysaa de albaabka furo markaas quraal baa lagu soo markaasaan idhaahdaa warbayna su'aala baan halkan ku baniday kaariyoomadii iyo birihii iyo sariirihii iyo wixii albaabka aan ku banidayba waan dhiga markaas ugu maxaa ku dhaco markaasaan ku dhaco Allah umeena dogeyn beri baa guri aan seexday la igu jabsadayo sariirihii iyo wixii ba kaariyoomadii baan iska dhigayo waxaan shiri waa digan ta kala dhacayo inta soo fashilantaay guriga inta lagu jabsado adiga ba lagu moodaadii oo ku ceebowdaay waa ceeb hore ugu dhacday tisii meel baa ku baniday markaas uu riyaa ma sa dhacday markaasaan ha markaas uu waayay namariyo ninkii uu soo kaxiyay ninkii waxaan ku oran kari waayay horta xalay gurigaaga waa ku dhintay meel ogti deetana waxa saadaw sheegtay in maalin wala ku moodi doonaa shakigaaga kugu dhacay waayihiisa laabta ku hayso dabeetana ninkii waa soo raacnay dabeetana waxaan garan waayay wax allaale waxaan ku hadlo oo dhahdo nin waxa ay ku dhacay waayo dhibaatana xalay aad cusub baan la kulmay dabeetana waxaan go'aansaday dib dambe inaan u shakiin oo aan waalanayo hadii aan shakigan uu la sii socdo ama aan umada ka dhaxbaxayo sidaan u dhintay oo kale sheekaas halkaasaan ku dhaafayaa dhacdada ay soo martay la yaab kale anigoo noolaa dhintay